السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ذا دمانتين وايد والسلامي من البعدون قد على دي سكة ودا جوكتان channel كان نقد دعوانيسو والشمس حسن حنا كسو دوانا إذا لا هاي مر لبعض يمر سدحات با channel كينا بليس هذا نقول عصد هاي سبسكرايب نوده لاقي شير كومنتي دي رجلنتنا وحقينا وعني جوا شمس محاول ده هاي قصة دي أدنى وقبرتين أيام ودنا إن ويل ولا كنا ku nool dalka South Africa ayaa nala soo qabsaday qisada ku dhacday iyo dhibaatada qabsatay iyo problemka wiilkan wuxuu dhahay walaalkeen dhamaantiin waa idin salaamay channelka Shamso Xasan Xinna inta ku xiran oo dhan aad iyo aad idin wada salaamay waxa idin leeyahay dhahay xilli kasta idin tahay wanaagsan annaga sidoo kale walaalkeen waa aan ka qadna salaanta ku soo dhawow channelkeena oo ku soo dhaweynana walaal qaali wuxuu dhahay wiilkan waxaan ku noolahay magaalada South Africa waxa aan joogaayo yiri 10 sano ayaan keligay horta aan ku noolaayo yiri 5 sano kaleeto 2 sano gabar ayaan isbaranoo dhahay maalin ayaan meel iskugu imaanay gabar Soomaaliyeed ayaan isbaranoo dhahay barashada kadib waxaana dhaxmaray yiri wada sheekeysi wada hadal iyo kafta gabadha waxaan iskugu imaanoo yiri meel maqaaxi ayay shaqaale ka ahayd oo dhahay ay ka shaqeynaysay iyadoo lagu qeylinayo ama si qaldan loola dhaqmayo gabadhii aan fiiriyo dhahay waa gabar Soomaaliyeed oo dhahay waa aan la hadlo yiri abaayo banaanka u soo bax banaankaan geeyay waxaan dhaweeyay maxaa dhacay qaxidana ka shaqeeyay tir walaal wax aan haayana ma lahan qofna meeshaan kama aqaano magaaladan waxaan joogaa dhowr bilood cid aan garanayna ma lahan meeshaan ayaan ku suganahay waa kasta meeshaas ku baranoo yare saacadan laga bilaabo ana ku joogo waxa rabtane aniga garabkaaga waan wado yare gabdho shaqaysto oo guri wada degan ayaan u geeyo dhahay gabdhihii aan dhaho yare haniila noolaato halkaan ha joogto kirada barkeedana ana bixinayo bil kasto shaqana ana u keenayo wuxuu dhahay gabdha abaaya muddo 2 sano ayuu sheekadeena iyo xiriirkeena ayuu socdo dhahay gabadhu wuxuu yiri dukaan ayaan u habeeyo dhahay meel ay ku shaqaysato ayaan u furo dhahay meesheeda ilaahay u kala kiciyo dhahay kala arag dukaankayga mid ku dhagan baan u habeeyo dhahay meesheeda ilaahay u kala kiciyo dhahay ana meesheeda ku shaqaysanahay gabadha abaaya marka isku toostay ee isku filnaato dhahay qof isku filan ee noqotay ayaan jecel u bandhigto dhahay way iga aqbasho yiri iyadana meesha jecelkan ka bilaabo dhahay 2 sano ayaa noo buuxsanto dhahay sanadka saddexaad markaan bilaabeyno guda galnayna aan guriga u bandhigto dhahay familkeeda iyo familkeyga is arko dhahay wada kulmay ayaan u sheegay waa leedoonoo yiri waana la siiyay waan isguursanoo dhahay farxad dabadeed 3 sano oo dambana wuxuu dhahay nolol iyo farxad ayaan ku wada nooleynoo yiri iyo macaane iyo macaanto iyo ubaxa iga gudoon keen abuuga ubaxa ho abaayo ubaxa ayaan ku jirnoo dhahay qosol farxad reereen sheeko bashbash iyo barwaaqo ayay noo sugnaato yiri eeba noo sugoo dhahay alxamdulillah dukaankii waan isku furnoo yiri hal xabo weyn aan ka wada dhignoo dhahay waan isla shaqaysanayno dhahay maadaama wuxuu yiri wax caruura aysan noo joogin oo dhahay kaligeedna inaan guriga oga taga aan diidana qof shaqaysanayo oo inay hore u socoto jecel ee tahayna waa aan ku taageersanayo yiri waan ku raacay wuxuu dhahay habeenada kamid oo yiri dukaanka ayaa nagula soo weeraro yiri meesha xabada la isku dhaafsado yiri israsaaseena ka dhacdo dhahay way cararta meel luuq ayaan ku tuuro yiri aniga xabado ayaa dhowr xabadood ayaa dhabarka dambe iga dhaceen oo dhahay inta iyada la sii cararay dhowr xabadood ayaa igu dhaceen oo yiri meesha liiga kala cararay qof dhintay ayaa laga soo qaado dhahay wiilkan qof dhintay ayaa ahayo markii ambulance qaadayso dhahay dhakhtarka la dhigo yiri dukaankeeni wixii lacag yiilay wixii oo dhan afka la marsado dhahay alaab noo maqneed maahan inta kale wuxuu yiri dukum daakum ee noqoto dhahay dukaankii waa naga la gubo dhahay xaqiiqadii wuxuu yiri 2 wiil meesha ku dhimato dhahay ani ilaaha badbaadiyo dhahay inkastoo wuxuu yiri maanta aan sidii qof cuuriyana aan gaari u saarano hooyada qaarka dambana aan ebarka hooyada xabadahaas igu dhaceen la adligeedo dhahay wuxuu yiri alxamdulillah dhakhtarkan ku jiro yiri muddo 2 sano dhakhtarka ayaan jiifo dhahay kooma ayaan ku jiro dhahay
markii aan soo naaxay ne oo hadlayba on soo kacayna ummadii oo dhan mafajiceen noqoto dhahay waa lala yaabo dhahay hebel soo kacay qof walba afku qabsado dhahay alxamdulillah ilaaha badbaadiyo dhahay ducada waalidkayga iyo ummadda islaamku wuxuu dhahay meel walba iga soo duceynayo dhahay waxaan garab istaagay iyo waxaan wax u taray iyo waxaan waxba u tarin wuxuu yiri magacayga yaqiinay duca ayay ila soo garab istaageen dhahay alxamdulillah xaaskayga meesha aan ka filanayo dhahay meel kasii hooseyso ayay ka soo baxdo dhahay ama ay iga soo baxdo dhahay wuxuu yiri guriga liigu soo celiyo dhahay marka guriga lii keena dadkana kala tagan waxay dhahdeen saaxiib waxaan ku sheegaa ani mana ku sii riixi karo mana ku soo riixi karo waxaan ku sheegaa saaxiib waraaqdeedan ka raba waaga haduu bariyo waraaqdeeda isi aniga ninkan nin noocaan aniga waqtigii kuma luminaayo ilma aan dhalaan rabaayo bambaa meeshaas ku qaraxday boog kama filayno yiri niyada ayaa wallahi wuxuu dhahay aad iyo aad ayaan hadaladeeda oga naxo yiri ama aan oga qaracmay oo dhahay xaqiiqatan wuxuu yiri inta iga go'day xabada markay igu dhacdo malaha maba iga go'ino yiri eraygaas markay aan ka maqlo dhahay sidaan u nahay ma malaysan kartid oo dhahay abaay waxaan ku dhihi lahaa 100 ayaa gaari ku socoto oo xataa gacmaha aan waxba ku qabsan karin oo nolol cusub u hayaamayo saaxiibadooda garbahooda taagan yihiin nolol la qeybsanayaan farxad la qeybsanayaan dan maxaa kuugu kalifay qofkii aad shala jecleed adduunyada ka calmatay in aad tiraahdo iska keefur ya waalidkaa kuugu may nicin qof kale mayna kuugu nicin qof kale maysu ku dhihin aniga ninkan uma rabo ama uma baahni cidna kuma dhihin cidna ma ku weydiinin qofna may ku dhihin maxaa kuugu kalifay maxaase ku keenay dhibaatadaas marka waxaan dhaho yiri abaysaas ma jecleysataha okay wax walba aad jecleysatay diyaar ayaan ku ahay raali ayaan ku ahay waa ku sameeynaya xaqiiqatan wuxuu dhahay gabadhii walaashay sida ay iiga tagtooy waraaqdeeda iiga qaadato yiri qof waxaan dhaho yiri gaar lagu riixaaya dhalinyaradii ama wixii yaqiina ama gabdho wixii magaalada deganaa dhana ay wada yimaadeen oo dhahay dukaankii mid ka sii weyn maahana inuu ka liita maahana ka qurux badan ayaa hadana dib u furtay oo dhahay oo garabkayga ummadii oo dhan ay ka wada muuqato oo dhahay xaqiiqdii waxay erayada ee tiroo yiri ilaa hadda hurdan igama soo dhacdo yiri xaqiiqdii wuxuu dhahay wuxuu story amal ay hadaladaas igu soo noqdaan oo yiri utun ayay ugu noqdeen oo dhahay waana wax laga xumaado yiri xaqiiqatan ama dhibaato loo dareemo dhahay wallahi wuxuu dhahay wax walba horta rabbi yaa bixiyo dhahay dhibaato walba ay qabsato ama dhibaato walba igu dhacdana ilaah ayaa ii qoro yiri wax iga ba'ayana ma lahan beenta ma aha walaal ilaahay waxaan ku dhihi karaa mid kuu badasho badal qar qabo wadato rabbi ha kuugu badalo oo wanaagsan wuxuu dhahay wiilkan walaalkeen waxaan u baahanahay dhahay inaad noo soo duceysaan oo dhahay aniga ahaan oo dhahay inaad ii soo duceysaan insha Allah in aad lugahaada ku socoto qalin kale ayaan galayaa oo dhahay mar dhow qalina ii balansan in ilaahay qalinkaas igu guuleeyo anoo lugahayga ku socdana insha Allah ta'ala abaayo videogayga waan kula soo qaybsan doonaa wuxuu dhahay ducaan u baahanahay duco in la soo garab istaago gabadha sida ay gashay la adeegeedo waan ka qaracmo weeradiyadeeda dismuraal xun ayaa igu dhaco dhahay aad iyo aad uga niyad shabay dhibaatada ay haysatana iyo problemka ay haystana taas ayaa igu badan oo yiri haddana qalina u balansan oo yiri bisha dhalanaysa 16keeda ayaan qalin u balansan oo yiri bisha 16keeda ayaan qalin galayaa oo dhahay in ilaahay igu badbaadiyo qalinkaas caafimaad ina ilaahay igu siiyo dhahay aan lugahayga ku boodo ilaahay inuu i tuso ayaan rajeynayaa oo dhahay idinkana ii soo duceeya waxaan qisadeeda nigula qaybsado yiri xanuunka i haayo in ay iga yaraato dhahay oo aan ku nafiso ayaan jeclaysto dhahay abaayo adiga iyo asxaabtaadan dhamaantiin waa inuu salaamaya anna sidoo kale waa inuu salaamaya oo dhahay waa ka wada qaadna idinkana waxaan rabaa wiilka walaalkeen in aad igu duceysaan ama aad hawada ugu soo marisaan duco dhamaantiin waxaan idinkaga sii tagaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh